يعني markaan ka hadlayno National Security Council oo Soomaaliya ay leedahay markay fadhiyaan go'aanaday gaaraan ayaa cadawga waxa laga yaabaa inay wax ku jaangoostaan ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed markay fadhiyaan oo istiraatiijiyad iyo qorshe ay diyaariyeen ay u soo bandhigaan meelo kale ayaa laga yaabaa cadawga inuu ka faa'iideysto annaga waxaan ka hadlayno farsamo kama hadlayno in la kala gartaal rabaa annaga plan aan diyaarinay qorshe aan diyaarinay oo aan leenahay saddex guutaan waxaan ugu talagalnay meel hiblaayo ayay weerari doontaa guuta hiblaayana waxay ka soo galaysaa dhinaca midigta ah guuta hiblaayana badaxday ka imaanaysaa malaaficdan wadano waa 350 madfacan wadanaa intaasoo BM waxaas annaga ma ka hadlayno just waxa laga hadlayaa amniga dalka iyo seel loo toosiyaa xildhibaanka xaq wuxuu u leeyahay fikirkiisa inuu cabiro dadu mesela halkan waxaa fadhiya xildhibaanada golaha shacabka waxayna meelaan shacabka amasashaan ayaad ku meelaysaa fikirkaaga iyo aragtidaada marka waxaan soo jeedinayaa mar walba in la soo gaabiyo xildhibaanadana aad ay u ixtiraamaan fikirkii inay dhageystaan waxaan rabnaa ninbaa wuxuu yiri waxa isu imaanaya dawladaha qaar waxay ka doodayaan nyaanya ayaa laga doodayaa tamaatim nyaanya ayaa laga doodayaa nyaanya dambe la isku ma soo noqonayo nyaanya meel la iska dhigaa bas nyaanya waa laga dooday nyaanya waa la gabagabay dadka qaarna waxa la yiri waxay ka doodayaan qadiyad masiir ummadooda qosaysa la raba inay jiheeyaan ay ka doodayaan waxayna ku dhamaanaysaa waxay la yiri عدة ريما غاني اتفقت العرب على ألا تتفق وعن ربنا أنك قضية كصابسن أمنية ومد سامين يسدنا على قالها ومد سامين يسدنا عبد الشدة ومد سامين يسدنا والبوء نلش مواطن كالصومالي دمان عن ربنا حلبانا ذا وحبذنا كفا إذا سنة شلي حلبانا ذي حضلي أفكار في عنا والسوجيدي وحالله صعد وقرن الصوماليات أو سديد إلا 20 سنة بربر سنة dadka halkaan fadhiya looga fadhiya inay ka badbaadiyaan nafaqa godkaas mugdigo aan ku jirno mid kale inaan u sii gudbin marka aan leeyahay xildhibaanada afkaartooda ay cabirayaan wax badan waa laga faa'iidooyaa saxitaanaan wadnaa qarankan mas'uuliyad ayagay ka saaran tahay marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan codsanaynaa dadka qaar waxaa laga yaabaa inay la yaaban yihiin waay xildhibaanka ilaa waqtigan loo siiyay horaan idinku sheegay waxaan ku yiri adiga isxilqaam adaa mas'uula fikirkaaga inaan dhex galno ma rabno waqti kasta nagu qaadato waxaan rabnaa amniga meel inaan saarno aad u mahadsantiin wad